dhibaatooyinka ka dhasha fatahaadaha webiyada iyo biyaha roobabka ayaa galaaftay Soomaaliya 30 qof in ka badan waxaana burbur uu soo gaaray buundooyin halbowlo u ahaa bulshada waxaana barakacay 100 kun oo dad magaalooyin dhowr ah haddaba xal ma loo heli karaa fatahaadaha Soomaaliya waxa arrinkaasi aan ka wareystay Maxamuud Xaaji Cilmi Guure oo bartay cilmiga biyaha dhulka hoostiisa xaaladda biyaha waqtigan waxaa la isku raacay dadka saadaasha hawada maaragtay ku takhasusay waxay yiraahdeen roobabkan ma aanay diin 100 sano muddo laga joogo East Africa kama aysan diin waxaana soo dedejiyay laba arrin ayaa isku biirsatay mid waa El Nino iyo Indian Ocean Dipole oo positive noqotay marka labadii yaa kulmay marka waxa roobku marka wuu ishaystaa oo from Ethiopia ila Soomaaliya oo dhan inta ayuu wada cover garay marka waa biyo xajmigooda aad u badan yahay waayahay dhulka webiyada fatahaadaha waa lagu arki jiray awal gobolada Jubbooyinka haday noqoto Gado haday noqoto Shabeellada Hoose labada shabeellabo Hiiraan laakiin haatan si ka duwan sidii hore waxaa la arkayaa xataa in Bay iyo Bokool xataa Gaalkacyo roobkii uu biyo dhiga oo dadka ay ku dhamaanayaan hanti badanna ay ku baaba'day marka maxaa ugu wacan ayay kula tahay horta marka cilmiga la fiiriyo geological structure ka maaragtay bedrock baydhabo waxaa loo aaneeyaa inta badan bedrock baydhabo waa dhow yahay oo maaragtay markii la qodo dadka baydhabo jooga markay qodaan biyaha waxay ugu tagaan 1 mitir iyo wax ka yar marka saturation point-ga degdeg bay ku gaarayaan markuu roob xogan doo dabadeedna dhulku waa biyo dhigaya isla markii uu biyo dhigaya biyahaas marka uu biyo dhigana waxaa badanayo biyihii dhulku ku cararaya oo through gravitation dhulka ugu ordaya ayaa badanayo waadiyaasha ku cararaya horta baydhabo arrintaas ayaa soo dedejisay roobabku xoogan oo da'ay iyo saturation point-ga si degdeg ku gaaraan meelaha kale waxaa laga yaabaa saturation point-ga inay waqti dheer ku qaadato oo dhulka maadaama muddo dheer abaar ahaa dhulku wuxuu biyo dhigaa moogtahay markii uu 100% bedrock ka soo kaco oo kor yimaado ayuu biyo dhigaa sax markaas ka bacdi waa markuu damage ka geysanayo marka roobabkan marka muddo da'ayeen waqti dheerna way da'ayeen dhulkiiyo markaa wada qoyay oo dhargay oo wixii ku oo dhanba ay yihiin biyo kor ka soconayo oo wax hoos aada aanay jirin ayaa u sababa waayahay maxaa xal ahoo loo heli karaa si looga hortago in fatahaada masiibooyin noocan haatan dhacay oo kale aysan mar dambe dhicin sidee ku suuroobi kartaa taas horta waxay ku suurtoobi kartaa in dalka muxuu ahaa meelaha maaragtay watershed development project ama meelaha ay biyaha ka soo hooraan ilaa waadiga waxay ka soo hooraan labada daraf buurahay ka soo hooraan through gravitation inta aan ognahay Soomaaliya biyaha markii uu waadiga wado waa calowgaasu markuu jiro waxaa soil erosion is taking place caradii nafaqada lahayd ayuu ka soo hoodayaa buurta kore oo dhaqmayso marka waxaa la rabaa buurta korteeda in geedo badan lagu tallaalo coos badan lagu abuuro filter ku noqdo maaragtay roobka markuu doo isla markaas carrada ma qaadaya markaas waxaa kaloo la rabaa in godad badan laga qodo wax loo yaqaano continuous contour trench ama dhufaysyo badan oo isdaba yaallo in buurta meesha ugu koreysa laga soo bilaabo dabadeedna buurta roobka markuu doo dhufayskaani galayaan way ka baxeen dhufayskaani galayaan iyo dhulkii markaas geedo lagu abuuray marka roobka markuu doo waxaa maadaama hadda roobka markuu doo isla markiiba waadiga imaanayaan biyihii calowa laakiin markii waxaas loo sameeyo biyaha waxay soo gaarayaan waadiga 20 ama 30 maalmood kadib dhulka hoostiisa ku soconayaan markaasay waadiga tagayaan in the form of spring ayagoo ah oo aan calow weyn oo nadiif ah taasna waxay kordhinaysaa inuu waadiga muddo dheer socdo meeshuu degdeg ku socon lahaa haddaba shaqada ugu badan waxay ka jirtaa dhulka webiyada leh hadda baardheer oo kale waxaa go'day buundadii halbowlaha u ahayd dadka luuq sidoo kaleeto buurdhuuba sidoo kaleeto beledweyn waa aragtaa 10 qofaa ku dhimatay marka magaalooyinka webiyada ay saas ugu wareegsanayaan maxaa xal u ah oo aan buuraha bis ahayn horta waxaa la rabaa in la sameeyo topography survey oo daqiiq ah in lagu sameeyo meelaha oo Soomaaliya looga baqo muxuu ahaa inuu magaalooyinka la degan yahay siibo marka roobabkan oo Ilaahay keeno oo saan oo kale ah horta dhulka waa u baahan yahay oo waxaa la isku raacay
dhul muddo badan oomana inuu u baahan yahay muxuu ahaa roobab inuu helo inuu mataqaana fatahaadda waxayba ku leeyihin 2 sano in hal mar la helo waaba wax fiican laakiin waxaa laga hadlayaa in la badbaadiyo meelaha la degan yahay magaalooyinka sidii loo badbaadi lahaa mooye oo fatahaadda dhulka u baahan environmentally marka waxaa magaalooyin su-aashaadu waxay ahayd see magaalooyinka looga badbaadiyaa magaalooyinka waxaa looga badbaadin karaa in shaqo loo soo jeesto dhulka intaanay roobabka diin ka hor in shaqo xoogan la qabto oo diversion wax walba waa suurtagal adduunkan waa laga leexi karaa meelaha la degan yahay diversion lagu samayn karaa waxaa kaloo la samayn karaa marka hore intaan diversionka lagu samaynin ka hor ayaa waxaa la samayn karaa dam xoogan oo biyaha qabto oo laakiin aan ahayn dam yar damkaan sheegaya waxa waaye dam qaadi karo webiga Shabeelle sanadkoo dhan intoo wada ama webiga Jubba sanadkoo dhan intoo wada dam qaadi karaa la rabaa annual discharge of the river biyo god intaas geli kartaa la rabaa in la qodo mashruuc weyn waaye ma kulata inay Soomaaliya ka bixi karto iyadoo la daalaa dhacisay dhibaatooyin dhinac walba ka haray 30 sano ugu dambeysay horta niyadda la iskama dilo oo wax walba waa suurtagal Nelson Mandela wuxuu ku maamaayay hadda ka hor it was impossible until it was done oo yiri hadda ka hor wax kasta oo aad adiga isleedahay lama samayn karo waa suurtagal oo marka hore niyadda kora loo qaada laakiin marxaladda hadda aan ku sugannahay oo dhinacna dagaal ka socdaan waxaan ku tali lahaa webigan in muxuu ahaa siyaabo badan loola dagaalamo hadda beledweyne kale markaan baaray webiga kaliya ma aha biyaha uu soo deynaya ma aha biyo waxaa jiro guurta la yidhaaho oo intay saas u baxaan dhagaxa markay soo celiyaan ayaga oo mataqaana ku fadhiyo 1 kilometer saas usoo socdo oo magaalada soo galaya jiro waa kuwaas ku hadda dhibaatada keenay roobabkiina magaaladii hareeraysa markay ka da'aan Ethiopiana ay ka da'aan ay isqabsadaan marka waxa waaye in meel kore looga hortago waa lagama maarmaan oo muxuu ahaa biyahaas at least godad waaweyn oo ay biyahaas ku hakadaan waa lagama maarmaan in la sameeyo kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Xaaji Cilmi Guure oo bartay cilmiga biyaha dhulka hoostiisa ku jira khadka telefoonka ee London ayuuna iigu waramayay